waxaan halkan ka salaamayaa dhammaan ummadda Soomaaliyeed meel kasta ay joogaan kuwaas oo u jeeday ama indhaha ku haya doorashadii Soomaaliya oo socotay inay dhamaatay iyo meeshay marayso rajaynayana inay dawlad iyo helaan oo doorashadu ay u dhamaato marka koobaad doorashadii inta badan way soo dhamaatay inta kale oo daarsan xawli bay ku socotaa in waqti dhow soo dhamaato baan rajaynaynaa goobaha ay ka dhamaatay waxa weeye Somaliland waxay 46 kursi oo ay lahayd way soo dhamayeen maanta ay soo gabagabowday sidoo kale Barawe iyagana way soo dhamaatay 26kii goobaha koobaad oo dhan inta badan hawshu ay ka socotaa waana gabagabo goobaha labaadna Banaadir baa wax soo dhamaatay Barawe waxaana ku jira Gaalkacyo iyo Boosaaso ayaa iyadana la asteeyay oo iyadana asbuucan soo socota inay ka bilaabato rajaynaynaa guud ahaan kuraasta soo baxday 165 weeye waxaa harsan 110 kursi oo aan rajaynayno inay iyadana waqti dhow noogu soo dhamaato guddiga doorashooyinka heer federaal iyagoo ilaalinaya habraaca gudanayana shaqooyinkooda waxay horey u joojiyeen 3 kursi oo kala ah 154 iyo hob 103 iyo hob 86 kuraastaas oo habraaceedu uu khaldamay amba aan ku toosnayn sidii loogu talagalay dib ayaa looga fiirsanayaa si inta ka horeysana waa la joojiyay oo sidoodaas ayay ahaanayaan waxaan rajaynayaa insha Allah guud ahaan doorashadu inay dhaqso u soo dhamaato oo goobaha hadda weli aan laga bilaabin dhaqso looga bilaabo waxaan rajaynayaa insha Allah in dawlad Soomaaliyeed oo dhaqso ah inoo dhalato 275 xildhibaan oo laga rabay aqalka hoosena ay dhaqso u soo dhamaato siday markii horeba 54 aqalka sare hore ugu soo dhamaatay halkaasna ay ka dhalato dawlad Soomaaliyeed aad baan idin salaamayaa dhammaan ummadda Soomaaliyeed meel ay joogaan waxaan rajaynayaa inaad kala socon doontaan page-ka waxaan kale oo rabaa in cadeeyo page-kii horey u carqaladoobay guddiga inuu gacanteena ku jiro isaga oo aan wax dhibaato ah aanu qabin hadda kadibna laga raaci doono ama lagala xiriiri doono lagala socon doono waxyaabaha doorashada ku saabsan iyo meelaha ay marayso aad iyo aad baan idin salaamaya. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.